waa dal Carabeed oo dhaca bariga dhexe iyo koonfurta galbeed ee qaaradda Aasiya, gaar ahaan darafka waqooyi ee Khaliijka. waa dal yar oo hareeruhu ka xigaan dalalka baaxadda weyn ee Sacuudiga, Ciraaq iyo Iiraan, wuxuuna dhanka saaran yahay gacan biyoodka Bershiya. wuxuu dhacaa goob istiraatiiji ah, waxayna naftadu uu soo saaro ka dhigtay mid ka mid ah dalalka ugu qanisan caalamka marka la eego dhaqaalaha dalka iyo dadka ku nool. magaca Kuwait wuxuu u laabtaa lafdiga Kuut oo loola jeedo qalco. mararka qaarna magaca Kuwait waxaa lagu macneeyaa dhul sareeya oo taag ah. bedka ama baaxadda dalkaana waa wax ka badan 17,000 kiiloomitir isku wareega, taasoo ka dhigtay dalka 164 marka la eego sida ay u kala dhulka weeyihiin dalalka caalamka. midda xusida mudan ayaana ah marka laga reebo gobolada Banaadir iyo Jubbada Dhexe, gobolada kale ee Soomaaliya dhammaantood waa ay ka weeyihiin dalkan baaxadda yar. dadka ku nool Kuwait waxaa tiradooda lagu sheegaa wax ka badan 4 milyan, waxaana dhulkan qarnigii 18aad degeen qabaa'ilo xoolo dhaqato ah oo ka yimaadeen jasiiradda Carabeed. waxaana ka mid ah qabaa'iladaasi Ahla Sabah oo ah kuwa haatan xukumaya dalkan, waana farac ka mid ah qabiilka Cutub. dadkuna waxay ahaayeen kolkii la aasaasayay Kuwait kuwa ku tiirsan soo saaridda luulka iyo ganacsiga badda, taasoo ka dhigtay Kuwait meel muhiim u ah ganacsiga luulka iyo ganacsiga badda. ayuuna dalkan ku tiirsanaa ilaa laga soo gaaray 1946 oo ah kolka la bilaabay soo saaridda naftada, waxayna ahayd markii ugu horeysay ee la daaqaaday naftada dalkan sanadkii 1934. intii u dhaxaysayna 1946 ilaa 1982 waxay dadka dalkan ku naanaysan waqtigii dahabiga, maadaama ay sanadahaasi horumar weyn sameeyeen. wuxuuna dalkan haatan si dhab ah ugu tiirsan yahay wax soo saarka naftada, waana dalka shanaad ee keedka ugu badan ee nafto haysta. caasimadda dalkan ee Kuwait waxaa ka dhisan burjiga ama taawarka 15aad ee ugu dheer caalamka, kaasoo lagu magacaabo Al-Hamra Tower ama Burjul Hamra. burjigan waxaa la dhisayay muddo 6 sano ah, wuxuuna dhererkiisu gaaraa 414 mitir. lacagaha Iiraan, Hindiya, Australia iyo Ingiriiska ayaa laga adeegsan jiray dalkan inta aan la soo saarin lacagta diinaarka ee Kuwait sanadkii 1960. lacagta Kuwait ayaana ah midda ugu qiimaha badan marka la eego sarifka. dadka dalkan waxay caafimaad daro ka soo wajahdaa dhanka cayilka ee saa'idka ah, waxayna majalada Forbes gelisay Kuwait kaalinta 8aad marka la eego dalalka ay ku nool yihiin dadka ugu cayilka badan. dadka Kuwait waxay marar badan la kulmeen dhibaatooyin sida 1881 oo uu ku dhacay cudurka daacuunka, waxaana cudurkan u geeriyoodeen kumanaan qof, waxayna sanadkaasi ku magacaabaan sanadkii daacuunka. dalkan yar 1990 waxaa 2 maalin gudaheeda kula wareegay dalka Ciraaq oo uu madaxweyne ka ahaa Saddam Hussein, wuxuuna Saddam u magacaabay xukuumad uu hogaaminayay Alaa Hussein Cali oo ahaa sargaal hore oo ka tirsanaa ciidanka Kuwait. waxayna dowladda Ciraaq ku dhawaaqday in Kuwait lagu daray Ciraaq, lana lalaalay sharciyada ay safaaradaha shisheeye ku sii joogi karaan. waxaa kaloo lagu dhawaaqay in Kuwait ay tahay gobolka 19aad ee Ciraaq, waxaana magacyada laga bedelay wadooyinka iyo xarumihii dowladda. xilligaasi magaalada Daif ee dalka boqortooyada Sacuudiga waxaa lagu dhisay xukuumadda Kuwait ee dibad joogga ahayd. Ciraaq waxay awood military ku haysatay Kuwait muddo dhan 7 bilood, waxayna Kuwait Ciraaq ka madax banaanaatay 26 February 1991 kadib dagaalkii labaad ee gacanka. dagaalkii labaad ee Khaliijka waxaa lagu magacaabayay howlgalkii duufaanta Saxaraha ama dagaalka xoreynta Kuwait. wuxuu ahaa dagaal ay qaadeen xoogag isbahaystay oo ka koobnaa 34 dowladood oo dowladda Mareykanka ay horkacisay.